afka bluusadii ugu weyneyd kaadiriinta aflaamta jugta culus iyadoo xijaabanayay jili jirtay aflaamta hooska siida si ay u xumayso sumcadda iyo suuradda gabdhaha muslimiinta ee xiran xijaabka ee baweyne ku waajib yeelay malaayiin dhalinyaro ah oo aan la seexanayay internetka kaga hagtay dhabaha halaaga kadibna gacmahoodii ayay dhallaankooda ku gowraceen kolkaasoo xaraarad dareen awgii macaamiisheeda xaaladuhu ay jeexjeexeen waxayna ku guulaysatay atarishada qaawanaanta caalamka iyadoo mareegaha internetkana ka noqotay qofta loogu raadinta badan yahay la kiriisatadii 12 kun dhaafsatay diinteeda shariifka ee islaamka tani waa la weydiista madiidadii sumcad xumada u soo jiiday muslimiinta oo dhan gaar ahaan muwaadiniinta reer Lubnaan magaceeduna waa Maya Khalifa kooxda Daacish ayaana ugu hanjabtay inay dili doonto dulinimadeedana dunida dhaafin doonto hanjabaadaha iyo weerarada isdabajooga ee kooxda Daacish awgeed ayaana sababay inay ka tanaasusho jilida aflaamta anshaxa xun balse gabdho badan oo muslimiin ah ayaa qaaday jidkeeda jilida aflaamta anshaxa xun waxayna jiilkan ku soo kordhisay in markii ugu horeysay la arko gabdho muslimiin oo jirkooda ka ganacsanaya kuna faanaya inay yihiin kala kicisooyin caalami ah maalmahan baraha bulshada waxay ka abuurtay hadalhayn aad u fara badan kolkii shaqadii faashiyoonka looga eriyay inay taageertay muslimiinta xaqdarrada lagu leynayo ee waddanka Falastiin